qof kasta wuxuu jecel yahay inuu jaamacad magac leh wax ku barto waalid kastana wuxuu jecel yahay in caruurtiisu ay jaamacad tayo leh wax ku bartaan haddaba ku soo dhawaada jaamacadda Istanbul Aydin University jaamacadda Istanbul Aydin waxay ka mid tahay jaamacadaha khaaska ee ku yaala magaalada Istanbul jaamacadda Aydin waxaa la aasaasay 2007 waxaana dhigto ku dhawaad 35,000 oo arday ardayda jaamacadda Aydin dhigato waxaa ka mid ah 5,500 oo arday ajaanib ah waxa ayna ka mid tahay jaamacadaha ugu ajaanibta badan dalka Turkiga sidoo kale waxaa dhigato 500 oo arday Soomaaliyeed taas oo ka dhigayso jaamacadda Aydin inay tahay jaamacadda ugu Soomaalida badan haddaba maxaa keenay inay noqoto jaamacadda Aydin jaamacadaha ugu dalabka badan dalka Turkiga sababaha keenay waxaa ka mid ah waxa ay ku taalaa meel istiraatiiji ah oo qof kasta u fudud inuu yimaado luqadda waxbarashada jaamacadda Aydin waa 100% English waxa ay dhigtaa dhammaan kulliyadaha ugu dalabka badan haddii ay ahaan lahayd engineeringka social science-ka iyo kuwa caafimaadka qiimo dhimis weyn ayay u samaysaa ardayda ajaanibta ah siiba kuwa Soomaalida waxa ay leedahay dhismo casri ah oo tiknoolajiyadii ugu dambeysay lagu sharxay iyo isbitaallo waaweyn ka soo xareyso jaamacadda Istanbul Aydin xafiisadeena oo ah xafiisyada kaliya ee uga wakiil ah dalka Soomaaliya si aad u hesho qiimo dhimis gaarayo 60% ilaa iyo 75% waliba adiga oo aan dhiibin lacag application ah ama sidoo kale lacag khidmad ah ku soo biir qoyska jaamacadda Istanbul Aydin University oo wax ku baro jaamacad tayo leh. Okay, so Istanbul Aydin University is having like official representative as Ask Uni through which you can apply also. They will be taking care of all your documents and documentation and your facilitation. So they will facilitate you in any way. Thank you very much and welcome to you Istanbul Aydin University. ashkuni.com waa caawiyaha ardayga